kani waa warbaahinada mataanaha ee hoyga diinta iyo shabakatul mutaxaabuun fillah waxay noo suurta gashay inaan wareysi gaar ah la yeelano Sheekh Cabdiqaadir Soomow oo ah hafeenka golaha guud ee culimada Soomaaliyeed hadda Sheekh Cabdiqaadir Soomow maxaa xila uu hayaa aniga hadda in muddo ah waxaan ahaa culimada afkooda ayaan ku hadlayay gaar ahaan suufiyo ahlu sunna jamaa golaha guud ee culimada Soomaaliyeed oo sheekheena Sheekh Maxadiga oo ka yahay waayilka wadaad lagu magacaabo Sheekh Caanood waxa uu sheegay una ka dalbaday inuu adiga kula doodo oo munaadaro uu kula galo marka arintaas wax waraka ma aad soo gudbin maxaad kaga jawaabaysaa arintaas subhanallah dad badan baa kugu dhaliilsan Sheekh Cabdiqaadirow in sheeqana dhankan aanu xigin mar inta iska dhaxad yahay mar halkan uu la shaqeeyo mar qolada uu la shaqeeyo bal adiga si dhaba bal isku ka naqay adigu qof ahad oo muslima ah oo ahlu tawxiidana aad iyo aad mahadsantahay sheekha kaga mahad aad u basanta aad